ardayaal cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nikaaxa iyo furiinka si fiican ii fahma nikaax furiin isku soo noqosho waa fahnay macallin su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waa maxay su'aasha macallow mid waan fahmay isku soo noqoshada iyo furiinka laakiin nikaaxa waa maxay ii sheeg haa su'aal wanaagsan ayaad i weydiisay nikaaxa waxaa weeyaan sharciga isku daritaanka ninka iyo naagta hadda waa i fahantaan filaa maya macallin weli kuma fahmin aniga waxaan ku leeyahay hiblaayo ayaan kugu daray isagana wuxuu leeyahay waan aqbalay markuu dhaho waan aqbalay taasi waxay ka dhigan tahay gabadhan ninkaasi inay xaaskiisa tahay oo asaga qabo maya macallin weli wax ma fahmin micnaha waxaan ku leeyahay aniga saamilow gabadhayda ayaan kugu daray waa aqbalay macallin maxaa aqbashay inaan gabadhayda kugu daraa haa macallin inaan gabadhayda kugu daraa haa macallin hadda fur gabadhayda hadda fur macallin ma furayaan waa qabaa gabadhaada waa maxay ma furayo ana casharan ku sharxay maayan gabadh ma kugu darayni anay macallin gabadhaada waan guursaday waa xaaskeyga adigaana igu dartay waxaana markhaati ka ardayda iskuulka hay ciyaalka xaafadaada marogto hambali saaxib waa mahadsantahay saaxib nasiib waa leedahay hambaliyo aro adaa nasiib leh oo macalinka gabar ku siistay wariya friso madax dheer yora friso adina had ifur gabadhay hadda ifur gabadhay ma furaysaa macallin maya ma furaayo aniga ma furay maxallaa ardayaal hadda waxaa idin barayaa cashirka furitaanka dhegaysta qaas ahaan saamil qofka markuu rabo inuu xaaskiisa furo wuxuu dhahaa yaa maryam waad iga furan tahay ma i maqasheen saamil adiga ayaan kaa rabaa hadalkaas inaad dhahdid dheh maryamo waa iga furan tahay dheh iga daw dheh maryamo waa iga furan tahay wow macallin xaaskayga ilaan maryamaa la dhahaa miya maasha allah aamusa idin ma qabtina sabax idin ma qabtina idin ma qabtina sabax soco idin ma qabtina soo dhawow wiilka aabihiisa wiilkaaga waxaa qaati lagu taagaya fasal gudihiisa lagu barta luuqadda carabiga markii la dooro wuxuu leeyahay deeq carab gonjinimada farac ma u leedahay maamule ani ninkana qaad ka tageen noo garqaad dhibka jira muxuu yahay ninka ma doonaayo inuu gabadha ii furo ninkan gabadhaada goormaad ku dartay ninka maan gool ku daraa kamaan gool ku daraa aniga cashir ninkaa ku tartan aan bixinay ninkan inta ninka iga faa'iidaysan ninkan inuu ii furo ninkan gabadheeda ma doonaayo anna arooskan raali kama ihi saamil guurkaaga waa xalaal ilaahay raali kama ahan furiinka haa maamula waa runtaada gabadhan waa ii xalaal mana furaayo maamul adiga maxaad ku dhashaa aniga gabadheeda inuu furo doonaayo adna waxaa leedahay xalaalay kuu tahay aniga gabadheeda ardayga inuu guursado ma doonaayo aniga haa waa runtaada saamil dhegayso gabadhan waa inaad hadda furtaa aad macalinkaaga xishmaysaa haddii kale aabbahaaga ayaan hadda u wacaya aan taleefon u dirayaa hadda fur gabadhan bes maamule bes waa u furayaa gabadhiisa ma rabo aniga arrintan aabaheyga inay gaarto hadday gaarto wuu igiraacayaa aabaheyga 3 talaaqo ku fura hadda anoo arkay 3 talaaqo aad ku furdha macallin gabadhaada waa kuu furay 3 waay maamule okay soo maahan haa bax iga taagdhe asidow waxaan ku weydiinaa ninkaax waa maxay bal ii sheeg bal ma kasaay